السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحرر أن نقوم على اليوم مدحوينياشا مع القبلادية الدلكة عشان شرفتان مدوغا مرشحين تو أي سمايين أو لغو ماموس هاي دوركي شريف كهاي كقاتين حالة دي مروكسنات سو قبقبين تيدا iyo dalka in loo jiheeyo xaalad doorasho oo heshiis lagu yahay yaa munaasabadan loo qabtay ayaga waqtiga ay u hureen iyo dadaalkii ay soo sameeyeen aad iyo aad ugu mahadsan yihiin runtii waxay ahaaday marxalad culayskeeda leh mas'uuliyiinta aan soo sheegnay iyo in badan oo kalena ay muujiyeen si wada jira inay arrintaas uga hawl galaan lagana badbaadiyo dalku inuu galo dagaalo sokeeye iyo hab aan waafaqsanayn nidaamka noo yaalla ee dimuqraadiga ah dadka Soomaaliyeed waxay muujiyeen inay u bisil yihiin nidaamka dawladnimada inay u bislaadeen nidaamka dimuqraadiga ah inay ka soo gudbeen kana soo kabteen dhaawacadii ka soo gaaray dagaaladii sokeeye ayna diyaar u yihiin maanta inay si nabada ku aadaan doorasho loo dhan yahay insha Allah tabaaraka wa taala sidaas oo kale waxaan rabnaa inaan halkan uga mahad celino cid kasta oo ka qayb qaadatay gaar ahaan ciidamada qalabka sida oo runtii qaybta ugu dambeysay oo ugu weyneed lahaayeen muujiyeen ayaguna mas'uuliyad aad u weyn sidaas oo kale waxaan rabnaa inaan mahad celino dhalinyarada kaamirada iyo mikrofoonka sidata oo runtii door shariif ayaguna qaateen waxaan iska iloobaynin fanaaniinta kuwa la yaqaan iyo kuwa la aqaanin oo caawa halkan ka muujiyay runtii fan iyo suugaan aad iyo aad u qoto dheer waxaan ogaaday qofka kaliya aan hees aqaan inuu yahay aniga kaliya inuu yahay ogaada caawa marka aad iyo aad u mahadsan yihiin runtii fanku waa ummad waxa lagu garto horumarkeeda haddii wanaag loo isticmaalana wanaag uu keenaa haddii xumaan loo isticmaalana xumaan uu keenaa ummadda Soomaaliyeed waa ummad hodan ku ah fanka runtii in la barbaariyo fanka oo la horumariyo fanka wanaagsan aad iyo aad ay muhiim u tahay marka waxaan u maleynayaa dhalinyaradu hadda qaar badan ay gala mid heesii la qaadayo aan wax badan ka fahmin aan maleynayaa laakiin waxay xambaarsan tahay dareen aad iyo aad u sareeya luqo xoogan iyo maxaan ku yiraahdaa iqaac qofka dhageysanaya dareensiinaya waxa laga hadlayo intaas aan ka soo gudbo caawa halkan looguma talagelin khudbado laakiin waxa loogu talagalay in lagu maamuuso walaalaheen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada oo runtii doorkaas aan soo sheegna qaateen waxaan rabnaa inaan ka codsano doorashooyinkii iyo wixii lagu heshiiyay sidii loogu heshiiyay inay u dhacaan una degdegaan waxaana iloobaynin inaan u mahad celiyo ra'iisul wasaaraha oo runtii asaguna door shariif qaatay hogaaminta marxaladan iska lahay marka asagana waxaan leenahay hore u soco gadaal ha u jeesanin mas'uuliyadda aad qaadayna Allah kula galab galo anoo magaca murashaxiinta ku hadlaayana waxaan ku ballan qaadaynaa inaan ku garab istaagno wax kasta oo fududeynaya in la gaaro guushaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala gabagabada waxaan ka baryaynaa inuu ummadan doorashada soo socota doorasho nabadeed nooga dhigo doorasho natiijadeeda lama hadi ilaahay nooga dhigo dawladnimadiina ay hana qaado insha Allah ummadda Soomaaliyeedna ummad isjecel oo isgarabsata oo iskaashata ilaahay ka dhigo dhammaanteena waxaan ku dardaarmaynaa inaan cadaaladda ku wada dadaalno aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.